waxaa iman doona maalin aad moodaysa wax walba inay soo gabagaboobeen oo ay xaggaaga ka soo dhammaadeen, laakiin ilbiriqsiga u dambeeya wax kasta Alle ayaa hagaajinaya. Ma garanaysaa sababta? Way fududahay, maxaa yeelay Ilaahay ayaa haysay subxaanahu wa tacaala. Xitaa haddii ay qalbigaaga ku soo kulmaan qoosashada adduunyada dhammaanteed, albaab kasta oo wejigaaga ahaadeena uu kaa soo xirmo, adduunyadan ay ciriiri kugu noqoto, xusuusnow inay tahay dareen waqtigeysan. Si kastoo murugadu ay u dheeraatase, waxaa xaqiiqo ah inay maalin uun zuuli doonto. Imise murugo iyo dhibaatooyin ayaa ina soo maray, weliba ayna dhaafeen, waaba iyadoo ay wax mushkilad ahna soo marin, haddana ay noqdaan mushkiladahaasi xusuuso aan ku qosolno. Sidoo kale imisaa moodna murugooyin inay weligood baaq nagu ahaan doonaan, laakiin aan uga gudubna ducooyin iyo allabari. Ma jiro shay weligii baaqi ahaan doona, farxad iyo murugo intaba. Culays kastana waxaa xigi doona fudayd insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullah.